guurkana wax laga cabsado ma bahaba hay waa wax yar isiyaba waa wax yar okay niimadu waa tan lagu leeyahay mas'uuliyadan gabadha waxa la leeyahay mar walba waxa barsharkeeda loo saaraa gurigiiba iyadu mas'uul ka tahay ay haysaa iyadana iyada laga sii mas'uuliyahay ma noqonay guurku de waxa weeyaan guurku maxay ahaydeen wuxuu u baahan yahay age bal ku gursada midda kale ma shaqaysato ani fikradda ma aaminsani marka hore ma aaminsani qofkii aad iska heshaan diinta islaamka haysta in aad iska gursato adaan marna iga maqnayno mataankaygii labaadiyo walaal mahuraana baad tahay garabka midigeen maciinsado talabiyada la warsta ka waramo say tahay anoo iska weyn bade inama fiicanta ma cunta ugu soo marka waxa ilaaha ka caafiyo waxaanu aad u xun qofkii maxaan ku raadayay wax laga shaqeyn karay ma kulli qofka guriga ka baxaan caafimaad hadii la doonayo gabadha caafimaadkeeda waa caadi ilmi ma meel dagaal u jooga la isku leenay guriga jooga maxaa lagu falay caadi galmudug la iska xaadiriyo aadiya haddaan idhaa hayaa gabadha guriga lama keeno guriga lama yaabay bada haye jinac baan ka baari jiray aad iyo aad baan idin salaamayna daawadayaal soo dhawaada kusoo dhawaada youtube-keena iyo bartaan ku leenahay facebooka sidoo kale tiktok-na Riyad Media subscribe gareeya barnaamijka fogeeya muuqaalkana share gareeya halkan waxay la joogtaa Wardiita Saciid mid kamid ah dadka cagaha dhulka ku haya haye faadmo soo dhaw 2 sano iyo maxaad soo socotay halaygu qaato umul baan ahaay aad iyo aad buu salaamaya Riyad Media aad iyo ku dhawahay debriyan buu soo socday imka ay haysan leh adaan marna iga maqnayno mataankaygii labaadiyo walaal mahuraana baad tahay garabka midigeen maciinsado kaatay aad Obiyan hees kari waxaan qaadaa hobey imika waxaan ku heesaa de kuwaasaaba imika waxaan ku maxay ahayd soo seexo waa ciyaalada berigii hore hadda ciyaalka wana heesi jiray wardiso moog ma ahe gabadh ciyaal korise mooga oo koriyaan u ciyaale Allah halka kana xariista badan aad iyo aad warda in ilma la koriyo in waxaan ku ri de anagu imika team de afkun baa laga leeyahay aad iyo aad hooyanimadu wax ta fudud maaha waa run bal soo dhawow waxaan ku ri shukri hooyadeed oh my days aad iyo aad inantaada quruxda badnayd he waay wallahi Faadimo hooyanimadu waa darajada ugu sareysa aad iyo aad qof bilaadan gaaro walibana gabadhde ma sha Allah way culus tahay aad bay u adag tahay laakiin sax walba waxa ka farxad badan ka aragtid ilma yar dhashay soo maana dhalay aad sidaan ay hawshahay waxaan ku yiri walibana de xilligii la hadlay gaadhinay waxa la yiri waliba markii wax ka sii hooyo waxaan doonayay ku tiraa aad iyo aad markaas oo kala abaabad arrinta adag khalaas laakiin waxa la yiraahdaa dadka reer galbeedku markay uurka lagu jiro xataa ilmaha waxay dhawn ku maqlaa wuxuu ku maqli way wala sheekistaa weeyaan isagoo dhulka yimina iska wada hadalkiisa aad iyo aad hooyanimadu bal inta badan waxa la yiraahdaa ilmaha markii la korinayo oo dhulka jiifo iyo markuu soconayo aad bay kala fududa inkastoo aanad gaadhin in ilmihi ku socdo wili bal hadda ka waran waqtiyadii ay isku cusbeedeen wallahi Faadimo horta xafudud ma jiro aad iyo aad laakiin xilliga soo jeedka ayaa aad ugu xun xilliga markuu ilmo dhasho iska ooyade waxay ma garanaysaa aad iyo aan waan yaabay bada haye jinac baan ka baari jiray aad maxaa ilmaha yar wallahi magacay la wax surin jiray ama sariirta ama xoolka xusoo galay waay de bal waa kana ma jiraba haye baad bade waay waxa jirta walaashayo de carruur badan dhashay way weegisa moogta maalin dhali waan waca ku raa nacarafo de maanta saasa ku dhacday maxaa sameeyay maxaa ku dhacay ilmaha yar haye uu hagaaga maanta ugu fiican yahay tiro la warwareeg maanta ugu fiican waay midda kale marba waxay ku tira markuu 6 bilood ku gaaro unba markaas aad kugu dhameysaba waxaas leeyahay 6 bilood hadda lama gaarin miya horta Faadimo heer waxaan gaadhaan u geeyo Dr. Garaad waay aad ku waxaan ku ri ooy ma garanay kaal baadban hay marka masaanti digulmeeni kugu horeeyay maxaa haya ma garanay de adoo sheegay waxa haya
halkan ka baadha buu guri dee caloosha laga hayo waay wuxuu guri inta remote soo qaadato saaw yar dhaafiyo ilaa 6 bilood geyso ilaa 6 bilood wayba ooyaan buu guri maalinta bay gudmis ilaa 6 bilood ha waana xal ma jiro iska qaada xal ma jiro haysan waay waayo buu wixii lagu la soo maray la dareemisa alla waar wallahi xanuunka hooyada soo marto warday waxaa la yidhahdaa gabadha markay ilmaha dhashay ilmaha inta la qaado halkan loo saaro sax hooyadeed xilliga hooyadeed oo kale xasuusta taasoo kale ma aragto bismillaahi raxmaani raxiim horta alxamdulilah markii da uurka iska caadi bay hedbe markii ma garanaysaa laylu waa la dhalayaaba oo uu soo baxayaaba qofkii maaniga yaaba waay bismillah anu markii dambena dumarkii waxaan qalniinka ku dhalayo allaha okay markii dee agal ka salaamay doctor Okombe aad iyo markuu soo saaray wuxuu waa mid kulul aad iyo ilmaha yar inka xanaaqsan day aad iyo marka wallahi waa cajiib weynimadu waxaan ku noqonayaa waxaa la yidhahdaa inta badan ilmuhu hooyadii buu raacaaye bilad adigu markaad yarayd Allah aad ooyi jirta ku sheegi dad baa lala taagnaan jiray mo wallahi Faadumo sidaas maxay ahaydee aan iskaga habigahay baba hooy waxay bid jiray wallahi qof kasta uu ku qaadi jiray ba aad iyo iska haysanaya sida la deganta deganay ma jirin ba jiray oo himbe ma jirin ma xanuunsanay wax ka khaldeen maahane ma jirin ba jirin aad iyo marka waa iska wala xagga faamigeeda kale ka xagga kale oo canaan baan ku dhameeyay wallahi billahi day ma noqonaysa waxaan waa idinka aad iyo ma nooli baan ku aad iyo aabaheed hadda laakiin way sidii hore way dhaantaa dee markii wixii bilood la gaadhay wax la cunaba cuntada bartaan ba caadi badi markaas ay degay mid kale markaa way fadhiisanayaan oo dee wixii shaqay malaw deynay qarne aad iyo markii way caadi noqotay aad iyo imka way hadaaq saacad bi noqotay inta badan dadka hooyooyinka hablaha hooyooyinka markaad la kulanto waxay ku odhanayaan walaahi berigii hore aan gabadha ahaa marka haddii gaari socdo iyo haddii waxba dee maan danin jirin laakiin imika haddii xataa gaarigu xoog u socdo walaala nagu ridin ayay dhahaan moogtay marka ilmihii bay xasuustaan saasoo kale bal hadda maxaad ka baqataa waxa kastaan ka baqaa qof kale ku xidhiidhay ha wallahi de qofkii baad xasuusanaysaa oo gaari aad loo wada sheegsay dadka wada hayjirin ilmaha dhalay maxaad ka qaldan aad iyo aad wala xageed ii riixday ha de walaal ayar aasha ayar waa ilmaha sugay marka wallahi wadna xasaayo dadkii qaraacsa ka warama say tahay de waxaan dareemay markii hooyo meel laga tagto xaafadana ma way ay soo wici jirtay ha intii kalena waxa oranaysaa talowiyada la waristaa ka warama say tahay anoo iska weyn badi ina ma fiican tahay ma cunta igu soo oranaysaa marka waxa xasuusta markasta meel tagta si soo qaraac jirtay aad iyo aad way waan iska fiicanaha iska fiicanta oo banaanka u baxaan soo warwarayso imka waa bada heerkii aad iyo marka markasta waxa oranaysaa dadka soo yarbaxid ka warama dee waa waxa labada sano si socday faham aad iyo ayaan kugu qaadanaya warda waxaa jira dad badan oo dhalinyaro ah oo yidhaahda u arkada yacni guurku inuu yahay xabsi oo kale qofku inaanu sidiisii hore ahaan karin dhalinyaradii hore fursadihii uu haystay oo kale adiga laakiin wax ka duwan baan kaa aragnaa sax anagii daawadayaashu wallaahi xabsi maaha guurku wax iska caadi aniga horta weli ma arkin wax dhiba oo aan oran karo dee waa guurku waa xabsi waa sidan normal iska caadi muhiimadda waa qofkaaga haddaad heshid wax xabsi ku gelin wax kula dhibi maarkis aad iyo aad dhalinyaradu inta badan guurka waxay uga cabsadaan oo waxay arkaan dhalinyaro ka dayrinaya inta badan yidhaahdaa meel ma tegi kartid qof baa kugu xiriira waxyaaba noocaas oo kale waa run wallaahi Faadumo waxaa laga hadlayaa waxay haddaan dee inkoo kale qof kulli mar walba adigaaga Faadumaas normal caadigaaga mar kastaba meel batisa soo mar uma baahanaysid waa saas kale qofkuna marka intaad umusha tahay waa caadi ilmahaaga waxa lagu leeyahay hooyanimadii dee dareemo daryeel buu baahan yahay mar walba in laga tagay waxaas ma fiicna laakiinse maxaa la yidhaha sidaadii hore normalka ahayd un badan oo laans caadi marka meel baahantoo muhiim tahay familigii wax walba muhiim tahay aabeed baad kaga tegaysaa qof kale ku saahin karay wax caadi ilmihii maa meel dagaal u jooga lasku leenay guriga jooga maxaa lagu falay caadi waay warta inta badan markay sheekaysan waxay igu lahayd adigaagaas oo indadsi kugu dhaweyn guurka waan kaala dhacay markii de aad iyo aad wallahi markii waan kaala dhacay waxa rasuul bal marka ugu dambaysan Faadumo aad iyo aad marka guurka wallahi horta hadiya jaraala dadka kugu xeeran oo kale ayaa odhanaya waa inaad ka joogtid oo kale waxyaaba noocaas dee waa pressure dee faabiya baad qaadaysaa waxa bal goornaya guurkee saad guursata aniga ma naga weydiis anaga weydiinayna soo aad iyo aad ma noqonay guurku dee waxa weeyaan guurku maxay ahaydeen wuxuu u baahan yahay age bal lagu guursadaa midda kale ma shaqaysata ninku baa lahayn karaa uu isbedelaysaa noloshu waa cabsi
wanigi yaabayba waay mideeda kale maxay ahayd qofkan maxaad ku xulatay ku guursanaysa haw dee waxaan walaaba caadi oo iska helna qof caadi weyn waay markaan waxaan leeyahay haddaad guursanaysa haba sheeginaba marka laastiga ugu dambaysuun baxsado carada haade laadiyeed laakiin sumogidad waxaa jira hadalka qofku bedeli karaa adoo maanta wax fikrad ka haysta haddaan ku idhaahdo faadumoy no maanta unbay ugu darantay iska joog wixii aad xitaa mateed ka weysa wax saranaysaa aadiye wallahi waa macquul markaan waxaan leeyahay sabarays kaga dhigaba aadiye qofkuna baan leeyahay guurkuna wax xunba maahaba waa muhiimadu isfahan haddaad qofkii aad heshaa isfahmaysaan laakiin waxaan kaloo sheegayaa qof haddaad wax sabab isleed u guurso amba wax kaaga jira marka hore maya sidan marka adaa nolosha ku dhacay aad iyo aad waxaa jira dee hablo dee dhalinyaraha ku odhanaya nolosha gurigeegoo kale ayaan caqabada naga haystaa qofkan waxaan rabaa inaan noloshan kaga baxo xorriyad ku helo no dee waasaan kuu sheegin haddaad maanta qofka aad iska heshaan ood u guursato daydeer ilaah iyo caadi iyo qofkii waa iska heshaan qofka waadna noolaan kartaa farxad baad ka heleysaa waa caadi laakiin haddaad tidhahdid sabab baa ku gelaya oo sababtana kaga cararaya waa markaas kale dhibaatay aad iyo aad xorriyadda qofkii waalidka aad ka weyday isaga ka raadis aad iyo aad macquul maaha markaan waxaan odhan lahaa iska soo saxaynta guurkana wax laga cabsado maba haba haye waa wax yaroo iisiyaba waa wax yaroo okay niimadu waa tan lagu leeyahay mas-uuliyaddan gabadha waxaa la leeyahay mar walba waxaa barsharkeeda loo saaraa gurigiiba iyadu mas-uul ka tahay way haysaa iyadana iyadaa laga sii mas-uul yahay ninkina waxa uu xawey inuu ilaaliyo gabadha ilmihii adigu inaad gurigii inta hoose aad ilaalisid marka waxa weeyaan adoo gurigaaga haysta oo gurigii ilaalinaya oo ilmahaagii wax walba caafimaadkiisii kaaga wax walba ka warhaya oo dee ilmihii maxaa la dhahaa aabaheedna ka warhaya ayaad noloshaad kalna wadan kartaa aad iyo aad hadda waxaad jirta adigu de waxaad ka mid ahayd gabadha social media isticmaasho oo baraa bulshada oo dee bulshaawiyada haddee asxaabtiis wada garanayaan oo kale wax caqabada may kaaga yimaadeen inta badan waxaa la dhahaa gabadhu dee markay gursato waa in gabadh marwaa noqoto oo kaas wallahi faadimaan marka hore waxaa iska dadka media badan maahay iska dadka yar iska yaro waxaan iska degan maxay hayday laakiin ani wax caqabada oo horta dadka idhaahda hayaay saaxiibadaha iyo dadkan guursaday waxaa ma aragtay wallahi kuwaas wax kale u jeedaa ma idhaahda lambarkii ma ka guuray xataa ma jiro uga lambarkii bedeshay waxaa dee dan kale lahay marka hore waxaa leeyahay saxaabi marka hore leedima rabin meesha iskaga yaa aad iyo waxba ma bedelo walaalo waayo iminka kale hablay asxaabtaadii imika kale inanku waxa lagu leeyahay macnaha sidii dee caadigay inaad mar walba xafla tigto ma asxaabtada mar walba reeri ahaato dee ma noqonaysaba ilmihii baa ku xakameynaya laakiinse sabab loo idhaahdo asxaabtaydii waan guursaday waan ka hadhaya ma jirto markii hore loo marmarsiyoonay waa loo marmarsiyoonay waxa jira mala imika baan guriga shabay hablay asxaabtaydii aad iyo aad isla boodin kale waxaan habla ka arkay dhaqan dad shikisan buu qoray haya guriga gabadh lama keeno guriga gabadh lama keeno walaal qofkani marka hore wada kuma rabin waxa la raadinay wallahi bilaa aad iyo aad guriga gabadh lama keeno oo ninkaagii gabadhaadu inay asxaabtaadu sarkaan maaha may imika kale aniga dee faadima dhalinyaradu waxbay soo mareen waa la is ogyahay haddii ka waran gabadh saaxiibana garab iga soo baahato inta guri ma haysto haddaan idhaa hayaa gabadha guriga lama keeno guriga lama keeno ninkayguna gabadha arko waa khalad muxuu ka arkay gabadha banaan ka baxay mise gabdho arkaya boqol gabdho malaayiin ku arkaya waxa ka jira magacaas aad iyo aad waa caadi asxaabtaadii hablihii marbaad isleen jooganaysaa waqti isla qaadanaysaa isku imanaysaan marna gurigaaga baad joogaysaa oo dee wixii lagaaga baahnaa baad qabanaysaa laakiin bataata qof adduunka keligii socda oo odhanaya dad maba rabaan ma jiraba anuu dadkan aqaano dad wanaagsan marka waxaad leedahay anigu dee ninkaygu boqolaal dumar meelaha ku arkaya maxaaba qof aan asxaabna aragtidiisa iyo aragtidaankeeda midda kale qofka gabadh laga ilaalinaya marka hore hawlba meel buu socda hawl waa barnaamij hawla qof aad ilaalin karaysa waad oran kartaa yaa la soo geli guriga asxaabtiyo guurkana sababta ugu badan ee loo leeyahay faadumooy guurkii asxaabta kale ilaaliya waxa weeyaan micnaha inaad mar walba gurigii ka baxdo oo lagaa waayo waxaas waa ma noqon wax aadan sameynayba laakiin gurigaagii in waa lagu iman karaya dadka jaarkii baa kusoo wareegi karaya qof kastaa ku iman karaya caadi midda kale guriga waxa fiicanba dadka badan joogaan ayaa qurux badan waxaa jira berigii hore waxaa la odhan jiray kaljar ahaan dadku markay isguursadaan hebel iyo hebel baa isguursaday gurigooday hala tago waa la isku boholiyoobi jiray waa la isku xidhnaan jiray gurigiina hebel meel la booqday gabadhii maad soo aragtay waa la farxi jiray moogtay imika laakiin sabanadii dambe iyo waqtiyadii dambe waxaa laga dhigay nolosha cidhiidhi gabadhii gurigayaan la wada tegin reerka maxaa laga doonay
gabadhu waxay odhanaysaa dadkii ay yimaaneen cidna yaanaan is arkin wallahi dee waa waxaas kale aad iyo ma noqonayso qofkii imka guri la rabo in lagu noolaado Faadumo oo ubad lagu dhalo oo qurux badnaada oo dadku imaadaan oo guriga lagu soo hirto wax laga cuno lagu nafisi karo aad iyo raba waxa dawaa ninka aad iyo reerka raba reerka uu dhisanaya aad iyo laakiin nin gabadhaana aduu doon meesha mala inuu abiis u keenay aad iyo ama family gabadha aan rabin ama dad kale wax walba u oranaya guriga cid hayga keensan gurka waxaas gur ma hada aad iyo wax xabsi de laakiin wax qurux badan aan saamka sheegso kale bariga hore la soo anaga imka guriga kala hooyo dad baan nala noolaa aad iyo hada hooy ma dhalay hadide aad iyo dadkaas oo kale guriga uu qurux badan yahay aad iyo marka dad kale ay nila nooliyeen dad bii imanayaan ma sha Allah wala farxaya wala sheekaysanaya dad kala duwan mid kale laakiin qofku stress dad bawaay aad iyo marka waxaan leeyahay agama way faama geer darsanaya aad iyo hablaha waxaan leeyahay maxay hayday guurka reerka ku guursaday oo kale wallahi ma sha Allah dad fiican weeyaan aad iyo ma sha Allah xitaa marka la soo hadlayo kale dawaa iyadoo lagu biimina waa niman ka warama gurigii ma sha Allah aad iyo soo leeyahay aad iyo marka waxaan leeyahay wiilasha habar gidir ha loogaa aad iyo aad iyo galmudug la iska xaadiriyo galmudug la iska xaadiriyo aad iyo aad iyo inta badan waxa la yiraahdaa hablaha guurka weynaanay ka guursan meelo ka fogfog meelaha reerahooda oo kale ama dadka ay qoys wadaagtihiin ama waxyaabo saas oo kale hadda galmudug aad bay nooga durugsantahay haddaan kula kaftamo waxaadna tiri reer wanaagsan oo maasha Allah baan ugalay hala ogaado welibana markii hore fikradda ka haysata maxay ahayd soo dhawaada wallahi yani guurkaagu meel kale noqdo Faadumo guurka inaad meesha laga guursado horta guriga marka ma aragtay xaafado kale wax ka jirjiraan oo qabiil laga sheekeeyo waxa barataaba aad iyo hooyadii waxaasna horta hooyana kama maqal cid kalena kama maqal aad iyo qofkii anigu aan raadinayna oon odhanayay qabiilku ma raadinay laakiinse dee waan maqlay iyadoo la leeyahay maxaa la dhahdaa weliba xaggeena aad uguma badna aad iyo waad maqlaysaa marka meel kale tagtid dhulka oo la leeyahay in adeerkay ayaa fiican aad iyo saas oo kale aad iyo jirtaa aad iyo laakiin ani fikradda ma aaminsan markii hore ma aaminsan qofkii aad iska heshaan diinta islaamka haysta dee inaad iska gursato aad iyo ku wanaagsan adigana ku wanaagsan aad iyo marka waxaad leedahay hablo waxba ha baqina meesha doontiin meesha aad adigu ka haysid hadda ku tahay dad gurso aad iyo waliba halkaas aad kula talinay waliba waxaad kula talinaysaa in la tallaabo Soomaaliya ina riyaadna aad iyo aad waliba soo arkaa anigu bardhaweyd baan ka yimiday Soomaha wallahi galmudugna waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu jecelahay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan booqdo marka nimika tagayna dee wasra aad iyo shukri bay kaxaynaysa yaday mas'uul marka waxaan leenahay hablaha hala iska xaadiriyo meelaha kale aad iyo hablaha kale iyaguna guurka tusaale ahaan oo kale fog ka qabay cabsida waxaan leenahay hala dhiirado kale waxaa jira qaar soo yar wado laakiin yara soo socdo iska sii daayay warda xafladaha kale iminka saad isu waafajisaa oo kale asxaabta xafladoodii inaad tagtid inaad aroosyada ka qayb gashid waxaa jira dee inamada qaar ku odhanaya maanta markii isguursanay xafladii halkaas iyo warday arrimaha halkaas ku dhamaadeen sax imika waxaan ka dhowr meelood oo isku yeeranay imika asxaabteena wallahi Faadumo horta qofkii ma garanaysa marka qofkaaga heshid wixii aan munaasib ahayn uu ka waaninay aad iyo aad koonada waxaas munaasib ma waxaas waa munaasib xafladu mar hadii ay imko kale Faadumo riyaad gabadh aad noogu culus baa la guursaday hay damiya ka joogi karaya waa taliisaadiyay haye iska daay wax haye marka asxaabtooda salaam ay fahmo aad iyo way miya ka joogi karaya maya marka waxa weeyaan anu waxaan leeyahay gabdhaha dumarku waxay ku qurux badan yihiin inay guriga ka baxaan way caafimaad hadii la doonayo gabadha caafimaadkeeda waa inay macnaha maanta dhan hada Faadumo guriga qolkan ku jirtid tii afartan darbood ku stress aad iyo daawanaysin gabadha quruxdeeduna waxa weeyaan inaanay wax stress aan arkin aad iyo nolosha caqabad wala stress wala arkay xanuun wala arkay dib wala arkay laakiin se kama aragtay abiyus ku jiro ee wixii aad rabtay lagu diiday lagu xajinayo ka xun yahay kaas garatay marka xafladahaas kala Faadumo marka xafladii timaado horta wallahi maxaa la dhahdaa
intii hore de asxaabta aanan dee maxaana marriageka ku jirin dee xaflad waan iska tegayo dee waqti wax lamida ma lahayn inta waxbarashadeeda iyo dee hawlaha ku mashquulsana maahane imika laakiin iyadoo cid kale ay haysan danuunuuda yara aad iyo aad oo in mihii waqti la siiyo fursad la siiyo ha marka waxaad leedahay na baxa na hawo qaata waa halkii farxiye farxiye cabsiye waa ku salaamaya maamo aad iyo aad madhow waxaa ku leedahay aad baan u dhegeystaa aad baan u dhegeystaan jecelahay marka wallaahi anu waxaan oran karaa faaduma qofkaygii baan helay aad iyo aad maasha allah tabaaraka dumarku badankooda maxaa la dhahdaa iyagoo qaar aan jeclayn baa jira soo moogid faaduma waan ku odhanaya maan gurigaas kaga haystaaba dadku isku wada ilaahay farahan ba ma simin dee dad ma wada abuurin laakiin ana wax iska jeclay in banaanka la tago soo rinjegareeyo saas aad iyo aad wardi markii aanay guursan ma inan bay jeclayd inay ku corto ma wiil bay jeclayd inay ku corto saa u sawiran baa jira ani laftarkayga waxba ay sii waxbaa kuu sawiran haddana waxaa ka weyn qadarka ilaah qadarka ilaah baa ka weyn waay aanu markii wallahi waxaan jeclaa inaan inan ku corto tiim inan ismuujiya aniguna waxaan ka mid ahay tiimka hablaha jecele haye waay madrasad baan dhigan jiro inuu nabigu u duceeyay baan maqlay aad iyo aad caruurta in la kala koriyo mise in la isku xejiyo hore la isku dhaafiyo may anu horta waxaan ahaa dumarka qalliinka ku dhalay marka koley dhakhaatiirteenu koley inaguna dee dhalinyarada mayna waxbay baranay waxaan anu jecelay aan ahaan in la kala koriyo si hooyadiina dee space u hesho oo qurux badnaato maxay ahaydee ilmo yaroo mentally physically wax walba oo dhisan oo dee maxaa la dhahaa masha allah aad soo saarto mar walba dhakhaatiirteena ilaaha daayay dee way nala taliyaan maxay ahaydee ana waxaan jecelay in la kala koriyo aad iyo kala korintu waa muhiim ha aad iyo qofkaaguna dee hadduu faadumayeen qof xabartay iyo dhex fahansan dan ku odhan isku xiji ha dee rag oranaya way jiraan aad iyo waa choice-ka xitaa dumar jecel baa jira aad iyo oo ku odhanaya baa anaa baa arkay bade aad iyo anaa jecelayna hore u dhaldhalo hadhow deetana aan caruurtii korintoodii wixii bay ka dhamaadaan hooyadana caafimaadaan waxaa la idhahdaa ha kala korso waayo diintaba dee waa tan xawleyni kaamileyn lagu 2 sano ilmaha naaska si siduu ilmahooda waqti hooyada waa xilliga waxa lagu leeyahay hooyadiyo ilmuhu bas bartaan waa xilliga naaska marka anu waxaan oranaa sida ilmihii hooyada isku bartaan adiguna aad waqti u heshid maxaa la dhahdaa kala kori waxaan faadumay aniga kaloo igu dhacay postpartum depression markii aan saa u dhalay waayo qalliin hablaha badankooda waxay dhahaan dad badan oo ka cabanayaan marka rinta wallahi ilaaha ka caafiyo waa xanuun aad u xun qofkii maxaan ku dhahdaa dee waa wax laga sheekeyn karaya maaha kulli qofkii ku dhacay ilaaha ka caafiyo marka qof xanuunkaas kale hooyo haysta oo haddaan doonaan la daweynin oo ilmo kale haddana xanuunkaasoo kale saa la iskaga daweeya saad isula tacaashay xanuunkaasoo kale waxaa la iskaga daweeya faaduma horta qofka in niyadda loo dhiso u baahan yahay aad iyo hooyooyinka qof aan haysan niyadda loo dhiso waxaana lasoo horay waxaa la doonaya in qofkii lala sheekaysto niyadda loo dhiso wal caafimaadsa waa sidan talabaad tasbiixdina badsatid aad iyo ta saddexaad kiniin baa la qaataa dhakhtar fiican baad u tegaysaa kiniin baad qaadan kartaa muhiimaduna inay wadada marka waa inay hurdo hesho la hurdo la-aantii ilmihiina laga hayo muhiimaduna inay wadada muslineen naho aad ku qanacdi inaad aad u adkaysid aad iyo dee haddaad heshid qofku dhiirigeliyo kula sheekaystana waad iska caafimaad marka waqti intee leeg baa laga soo kabtaa hadba saad isula tacaashay 6 bilood 7 bilood qaar ka bato sanadii waxa ayaa jira aad iyo waxaan wax loo waa cabsidii walaal aad iyo marka ilaaha ka caafiinta ku dhacayna ma leenahay ilaaha ka caafiyo haddii uu jiro hooyo saas oo kale imka kale lagu arkayna waxaan leenahay dee intaan idin sheegnay u sameey aad iyo ilaahina ka caafiyo aad iyo warda aad iyo aad baad u mahadsan tahay caawa de dadku markay ka arkaan waxay doonayeen inaad in yaroo ma garanaysaa codkaagii macaanaya laakiin de waxaynu ka sheekaysanaa caawa wax kaloo aad iyo aad u muhiimsanow dee waxaa jira qof dad badan oo hooyooyin oo ina daawanaya oo kulley ka faa'iidaysanaya fursaddan sidoo kale dadka singaladana caawa fariin baad u dirta fariin weyn baan u diro guurkaa ka baqanin waa difaansanay aad iyo aad daawadayaal intaasi kusoo koobaynaa barnaamijkeenii hadalka kala socoteen youtube-ka subscribe saara sheer gareeya lee gareeya aad iyo aad ba u mahadsantahay